Saleebano buug lagu soo bandhigay buug meesha la keenay ma jirto buuggan waa buug 15 sano jir been fakatay weeyaano baraha bulshada waad ogtahay waxay doonaan biska qorayaan waxay doonaan bay oranayaan dad badan run bay u qaateeno buugga la soo bandhigay buugga ma aha buugga bari horaan soo bandhigay oo meelo badan ku soo bandhigay kam xal laakiin maxaa meesha ka dhacay wax xaflad dhacay waa xafladii uno lagu xusayo farxadii uma la muujinaya in UNESCO ay noo diiwaan gelisay in Soomaaliland lagu dabaaldego Cabdalla arrin kala jirta oo dadka diidan in lagu qabto xeerkan magaalada Saylac kamid ah oo ku doodaya in qodobo xeerka kamid ah ay ka hor imanayaan qadiyada iyo madaxbannaanida Soomaaliland oo ay ku tilmaamayaan magaranaysaa waqooyiga Soomaaliya doodaas oo kale Soomaaliya mid loo cuskan karo in xafladan iyo xeerkan ba la joojiyay Saylac lagu qabto wax alla wax ku yimid ma jirto wadankan dawlad baa jirta dawlad baa xukunta dadkii rabashka sameeyay iyo wixii hawlahoodiina iyada dhameysay iyada gashay war la socotaa wax iyaduna dib loogu noqdo la hadal qaado ma jadwalkiina sidiisii buu socdaa u dhacaya halkaana dad badan baa yiri ciise waxay u diideen mufdigii Soomaaliland ka socday inay hadlaan horta waxaan ku cadeynayaa halka ciise ma maamulanay ummadii loo qabtay xafladda bay ka mid ahay dawladda Itoobiya qabatay iyadana ku faanis hawshaas dawladda Itoobiya ay iska lahayd Soomaaliland oo dhan inay ku faanto weeyaan sida Itoobiya ugu faanayso maxaa u diiday Soomaaliland inay ku faanaan yiraahdeen waa xeerkayga anaga leh Itoobiya ku faanaysa halkan ciise dugaa ku faan maxaa hadal keenayaba Saacaddiin waxay idin keentay dhisaynadii u dambeeyay sanadkan ka faa'iideysta dhammaantiin oo soo gaadha Saacaddiin furniture فافاين انت ديرنا واحد كلا خريدي كرتا تليفون نمبركا شاشada kaaga muuqdo Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akhyarta hawada naga daawanaysay halkani waa MTV aniguna waxaan ahay Saleebaan Saxan Soxo ku soo dhawaada daawadayaal barnaamij aad xogo badan ka heli doontaan isla markaana aanu ku iftiimin doono arrimo dhinaca taariikhda ah oo ku saabsan xeerka Ciise oo maalmihii u dambeeyay xaflad la doonayay in lagu qabto magaalada Saylac hadal hayn badan ay dhalisay haddaba waxaan eegi doonaa xafladan lagu qabanayay magaalada Saylac ee la sheegay in buugga Ciisaha lagu soo bandhigayo maxay ahayd ujeedada laga lahaa maxaa keenay in magaalada Saylac loo xusho waxa sidoo kale eegi doonaa hadallo badan oo ka soo noqday buuggan oo qaarkood ay sheegayaan in uu Soomaaliland qadiyadeeda ama qarnimadeeda ka hor imanayo ma ku jiraan qodobo arintaasi ku saabsan oo xeerkaasi qarnimada Soomaaliland qodobo ka hor imanaya ku jiraan xeerkani oo muddo 500 oo sano ka hor ah la sameeyay isla markaana beesha Ciise oo iyadu meelo badan oo dhulka Soomaalida degtay haday noqoto Djibouti Somaliland iyo waliba Ethiopia ay iyagu isku maamulayeen haddaba waxa barnaamijkan martigu ah oo xogahaasi oo badan bixin doona su'aalo ku saabsan oo dadweynaha ka soo noqdayna aanu weydiin doonaa Cabdalle Xaaji Cismaan cileeye oo isagu ah qoraaga buuggan xeerka Ciise isla markaana marar kala duwan uu update ku sameeyay ama uu wax ku kordhiyay qodobada kamid ah xeerkan haddaba ugu horeyn intaynaan gelin qodobada ku saabsan xeerkan iyo waliba sidoo ku yimi marka hore aynu istul taagno ama aan weydiiyo Cabdalle Xaaji bal ugu horeyn arintan muranka keentay ama dooda dhalisay ee ku saabsan xeerkan ee la sheegay in buugga lagu soo bandhigi doono magaalada Saylac sababta keentay waqtigan in halkaasi lagu soo bandhigo buuggan Cabdalle Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Saleebaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan idinka mahadnaqayaa adiga iyo TV-ga MMTV maadaama aad igu marti qaadeen inaan maartay ka hadlo arrimaha ku saabsan xeerka Ciisaha horta muxuu ahaa Saleebaanow waxa jirta xafladan lagu qabanayay Saylac ma aha buug la soo bandhigayo ma horta waxa weeyaan waa xus lagu xusayo maalintii UNESCO ay aqoonsatay diiwaan gelisay xeerka Ciisaha waad ogeeydo 2024 bishii December baa la diiwaan geliyay xafladii horeysana waxa lagu qabtay magaalada Dirdaba waxa gudoominayay muxuu ahaa madax sare oo ka socotay dawladda Itoobiya kii labaadna waxaan ku qabanay Allahumma salli ala Muhammad Djibouti oo ah hoteelka ugu weyn magaalada Cambeska leeyahay kaana dadkii Ciisaha baa maalinta ayaa sameystay muxuu ahaa maxay qaban qaabo halkii bayna ku xuseen taana dawladdu shaqo kuma lahayn iyadu dadka yaa lahaa
haddaba xafladdan maxaa keeno sidee loo diiwaan geliyo halkuu maray taana waxaan u baahanay inaan yar macnayno haddii alla yidhaah inagoo kusoo noqon doona xafladdan muddo haatan laga joogo 5 sannadood ugu yaraan ayaa maxay ahayday dhalinyaro reer Tirdhaba oo Soomaaliya oo Ciisa ayaa isweydiiyey oo yidhi qowmiyadaha Itoobiya qowmiyad kastaba waxay leedahay ay ku faanto ayaa la geeyay UNESCO oo la diiwaan geliya anagu Soomaali haddaan nahay leesh maxaan waxaynu u diiwaan gelin weyn dhalinyarada urur bay samaysteen la yidhaahdo City Foundation gabadh baarlamaanka sare Itoobiya ku jirta oo la yidhaahdo Ayaan Cali Muuse ayaa gudoomiye ka ahayd dhalinyaradii way isweydiiyeen maxaan geyn karnaa waxaan geynaynaa bay ahayn xeerkeena 500 oo sano jiray ee saa u dhigan ee maxay ahayd PhD lagu qaatay ee maxay ahayd buugta badanna laga qoray sida halkaas ay ka dhaqaaqeen dadka diiwaan qowmiyadaha diiwaan geliyay waxa ka mid ah qowmiyadda Hirarida oo magaalada Harar waad aragtee oo taariikh weyn bari islaamka geeska Afrika ee muslimiinta qiimo weyn ugu fadhida nimankaasu waxay qoreen taariikhdii magaalada Harar ilaa Axmed Gurey iyo intii ka horeysay 1000 sano jirta magaalada wixii oo dhan bay soo diyaariyeen soo qoreen inay magaalo islaam tahay inay taariikhda leedahay inay saa tahay xilliga Axmed Gureyna xaruntiisii u weyneed ayay ahaydba way qoreen Itoobiya loo geeyay wasaaradii qaabilsanayd UNESCO la geeyay markiiba waa la aqbalay alxamdulillah yani waa taasina waa wax anagu leenahay islaamka geeska Afrika ayaa iska leh diiwaan gelinta magaalada Hararna meelahaas oo kale iyagoo dhalinyaradaas ka dhaqaaqaya ayay iyagu inaan xeerkeennii aan geyn waa laynaga aqbalaya halkaa bay ka dhaqaaqeen buuggan bay ka dhaqaaqeen oo wixii ku qornaa oo dhan ay qaateen buugga la yidhaahdo Le Verdict de l'Arbre waxa weeyaan buugga waxa weeyaan gartii geedka waxa qoray oo PhD ku qaatay Dr. Cali Muuse Ciyan nin la yiraahdo oo reer Djibouti 89 buugta oo dhan bay qaateen way isku geeyeen waxay kala baxeen deedna wasaaradii Itoobiya qaabilsaneed Addis Ababa ayaa waraq u geeyeen yiraahdeen waxaan doonaynaa xeerka in dawladdu noo qaado oo UNESCO la geeyo lana diiwaan geliyo marxaba la yiri shuruudaha ku xidhay way soo noqdeen shuruudihii bay buuxiyeen dawladdii way timiday shir baadir laba lagu qabtay ballaaran oo ka qayb galay 2018 meelahaas waana ka qayb galaana waa la yeeray dad kale oo badan baa yimiday odayo badan baa loo yeeray dad aqoon-yahano aan Soomaali ba ahayn oo Itoobiyaanka kala ayaa iyaguna darso halkii muxuu ahaa lecture ka jeediyay muxuu ahaa 10 ku saabsan xeerka waxa oo dhan lagu faanayaa in xeerkan uu wanaagsan yahay oo Itoobiya leedahay ayaa nimanka aqoon-yahankuna marag furayaan dawladda Itoobiya dadka bay 2 nin iyo haweeney baa la soo diray waa la dhageystay waa la ururiyay dawladda Itoobiya way isku noqotay dhalinyaradii waxba ka yar dhinaaday wixii dhinaaday Soomaaliya waxay yiraahdeen waa inay meelo badan u maraan way socdeen Dirdhaba ka baxeen Miyi u baxeen Djibouti bay tageen Seylac bay yimaadeen meelo kale badan bay mareen wixii ka dhinaa buugta la qoray ayay soo qoreen soo ururiyeen filanna ka soo duubeen wixii oo dhan marka la isku geeyay ya dawladda Itoobiya magaalada Addis Ababa ayaa loo geeyay UNESCO la geeyay UNESCO formula badan bay keentay waxay tir kuwa soo buuxiya waa la soo noqday haddana kuwii baa la buuxiyay shir dambe Dirdhaba lagu qabtay wasiirkii hore arrimaha dhaqanka miyuha oo la yiraahdo muxuu ahaa ayaa ka soo qayb galay Soomaaliga ahaa Maxamuud Dir isaguna yimid halka hadal ka jeediyay waxay ka dhinaaba la keenay waa la buuxiyay dib baa dawladda Itoobiya lagu geeyay way qaaday UNESCO geysay oo la aqbalay yani waxa loo soo maray 5 sanadood hawl weyn oo meelo ka sii kharash badan ku bax kharashka ayaa bixinay dawladda deegaanka Soomaalida oo ku faraxsan iyaduna waxa ay leeyihiin Soomaalidu in la diiwaan geliyo meesha la geeyo way marka Cabdul waxaad leedahay buuggani gudbintiisa UNESCO waxa ka dambeysay dawladda Itoobiya oo dhinaca Djibouti kama tagin dawladda Itoobiya geysay si baa lagu aqbalay kolka waxa la yiri dawladda Itoobiya ciisuhu waa la qoray 3 meelood buu dagaabay 3 wadan uu kala raacsan yahay isticmaalkii deynoo qaybay Soomaa boo Itoobiya waa tan adu waad keentay waa diyaarsay ka soo saxiixa labadii kalena markaas Djibouti waa loo soo diray wasaaradda dhaqanka markaas saxiixday
طيب etoobiya waxay tiri dee somaliland lama aqoonsanay bal soomaaliya loo diray maadaama iyadu haysato maaragtay aqoonsigii dowladdii soomaaliya laga seexay waa lagu celiyey dowladdii etoobiya iyadoo wixii oo dhan yahay ayay u geysay allahuma salli calaa maxamed unesco sidaaba unesco ku diiwaan gelisay in ciisuhu 3 daadal uu degan yahay certificate ay bixisana waa aniga ku tusay dee waad aragtay Saleebaan soo ma certificate ay bixisay waxa ku qoran waad aragtay marka maadaama oo aad sheegtay in UNESCO markii ay aqoonsanaysay xeerkan ay ku xidhay meelaha ay ciisuhu degaan oo kale Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya marka taasoo kale arrintan dooda dhalisay ah in xeerka ciisuhu uu ka hor imanayo qadiyadii Somaliland soo halkaas oo kale qodobkaas mid macquul ah lagu doodi karo ma horta Somaliland hadday UNESCO fadhido meel kaleba lama marayaan iyada la soo marin iyada saxiix lahayd dowladda Somaliland way isku ogtahay sida daraadeed baa loogu geeyay Soomaaliya maadaama ay aqoonta Ethiopia u geysay ay uga saxiixday si wixii u meel maradi ila UNESCO ma yaala saadii Somaliland baa saxiixday la yiraahdo waxaan UNESCO kama batirsan ayaa lagu oranaya kolka dhibaatadu waa intaas una wax kale horta iyadu taamahayn kolka markii sida loo aqbalay de farxad weyn bay u noqoto dowladda Ethiopia way ku faantaaba iyadu in iyadu de samaysay oo ay leedahayna waxan oo dadkeedu dad xeer leeyihiin dowlad deegaanka Soomaaliduna aad bay iyaguna ugu farxaan iyo maamulka dir laba jooga inta waxay leeyihiin anaga al xeerka way marka maadaama oo de saxiixii dalal aqoonsiga loo baahnaa oo Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya ay saxeen maadaama adu qoraagii buuga tahay ma la socodsi dhinaca Somaliland kulama sheegtay in de Somaliland ay adkaatay inay qayb ka noqoto maadaama ciisuna Somaliland digo oo arintaasi saxiixaas Soomaaliya looga baahdo saa ku saxeen sidee yani dowladda ma la wadaagtay Somaliland kala markii maadaama adu qoraaga buuga tahay amay aanu waxba ma qorin dowladda Ethiopia geesaanu buugan waxaan qoray 2010kii buu soo baxay oo xeerka ciisaha horta waa doctor TV-gii raadiyoga joogtaan ka shaqeynayay barnaamij dhaqankan raadiyoga ka soo deyn jiray daadiyaashii barnaamijkii tixmaalna ka mid baan ahaa aniga iyo maxamed daahiri Allah u naxariistay maxamed cabdilaahi riiraash anigu 20 sanadood baan barnaamijka raadiyoga ka shaqeyn jiray oo odayada wax ka urinay taaba igu dhalisay inaan odayada ka qoro xeerka waa muddo badan waxaan soo waday 9 ilaa kullu wixii oo dhan intii markaan helay qodobadii iyo odayadii oday jaaca musalleyda inta badan ka qoray Ismaaciil Maxamuud Dugsiye Axmed Aadan Caadle Faarax Wacays rag caynkaas yaan helay oo meesha idaacada joogay ninka liya ka noolay marka intii kale way hooyatay waa diiwaan waad maqasho nin wax bartaa tahay nin oday markuu inaga dhinto waxa la yiraahdaa biblioteek dhan oo gubtay weeyaan ragaasan ka reebay waxa timid xilliga ugaadka la qabanayay yaa nasiib aan ku soo dhacay waxa iga maqnaa kab ugaas baa la yiraahdaa waa xeerka ugaadka lagu qabto xilligaana nasiib wanaag maadaama aan idaacada ka shaqeynay nasiib ma yeeshan tagay intiina xaqii baan ka soo qoray oo ku soo dhaneysay buugan marka aanu 2010kii uu soo baxay waa imisa 15 sanadood buu ku jira buugagta aan qoro afara ka ugu socod badan ay dadku akhrisaan waa kani way aynu soo noqon arrintan imika taagan ee ku saabsan qabashada xafladda waa taana u soo noqonay markii la diiwaan geliyay ee saa loogu wada farxay xaflad baa lagu qabtay ballaaran magaalada Dirdhawa markii lagu qabtay waxa gudoominaysay dowladda Ethiopia kharashkana waxa bixiyay dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Dirdhawa Abiy Ahmed xisbigiisa la yiraahdo barwaaqo ninka ku xiga oo la yiraahdo Aadan Faarax oo Soomaalida deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ayaa shirka gudoominayay hadalkana iyaga qayminay halkaana dad badan baa yiri ciise waxay u diideen wafdigii Soomaaliland ka socday inay hadlaan horta waxaan ku cadeynayaa halka ciise ma maamulanayn ummadii loo qabtay xafladda bay ka mid ahay dowladda Ethiopia qabatay iyadana ku faanis hawshaas dowladda Ethiopia iska lahayd taas waa taa markii dambana reer Djibouti maadaama ciise halka uu dago waxa la yiraahdaa aan qabsanayna xaflad waxa lagu qabtay hotelka weyn ee Kambeski dadkaan is abaabulay oo qabsaday waxa la yiraahdaa Seylac oo kami oo ah xaruntii gobolka Salal gobolada ciise ka dago weeyaan Soomaaliland Soomaa xagaana waan ku qabanaynaa waa xeebaheed
kuleyl bay ahayd kuleylka lama tagi karo xeebaha waad arkay lama dhaqaaqi karo wax la xagaag way naga baxo xagaagii baa baxay ciisihii reer somaliland waxay ku shireen meesha la yidhaahdo ceelgaal waxay yidhaahdeen bisha november 10keeda nagala soo qayb galay insha allah haddii alla yidhaa tii saddexaad baa waxaan ku qabanaynaa dabaaldega saylac saleebaano buug lagu soo bandhigaya iyo buug meesha la keenay ma jirto buuggan waa buug 15 sanadood jiray been fakatay weeyaanoo baraha bulshada waad ogtahay waxay doonaan bay iska qorayaan waxay doonaan bay odhanayaan dad badanna run bay u qaateenoo buuggaa la soo bandhigaya buugga ma aha buugga beri horaan soo bandhigay oo meelo badan ku soo bandhigay laakiin maxaa meesha ka dhacaya waa xaflad dhacaysa waa xafladii uno lagu xusayo farxadii unbaa la muujinaya in UNESCO ay inoo diiwaan gelisay in Somalilandna lagu dabaaldego waa waa waajib iyaduna saylac waa Somaliland ma ya hawsha markaa yaa wada dad iskood isku xilqaamay baa leh dowladda Somalilandna waa loo sheegay waddankanna dee dowlad baa ka jirta ammaankii iyo adduun oo dhan iyada ka mas'uula ciisuhuna xafladda unbuu meesha ku qabsanayaa waa dalkiisiina way markaa ma ciisaha degan Somaliland baa imanaya mise meelaha kala duwan Ethiopia iyo Djibouti baa laga imanaya ciisoo dhan baa imanaya Ethiopia way ka imanayaan Djibouti way ka imanayaan ku dibad jooga xitaa hadduu jiro iman kara uu iska imanaya ku Hargeysa jooga hadduu jooga uu tagaya waa kaas way marka imka dareen baa ka dhashay oo watan dad badan ay ka hadlayaan marka wax si gaar ah ama sabab keentay inaad saylac ugu xulataan maadaama oo magaalooyinka Somaliland Hargeysa lagu qaban karayo maxaa saylac loogu xushay in lagu qabto kama tirsan gobolka Ciisa sidii laba loogu qabtay uga mid tahay gobolkii maxay Soomaalida Ciisa Djibouti ay ka mid tahay saa oo kale baa loo xushay oo leeyahay halkaan waan ku qabanaynaa waayo halkan dadku imsa kilomitir bay u jirtaa Hargeysa maxay sheeg dadka iman kare ba dadka deegaankaas iman kare meel Hargeysa halka ugu dhow ee lagu qabanayo waa halkoodii halka bay doorteen in lagu qabto way ilaahay maxaa iska bedel qorshihii maadaama oo doodna ka soo noqotay oo xaaladda ammaanku ay mararka qaar kood saameyn ku yeelan ka gaadhayba gobolkaas sidii ammaankeeda arrintii doodda ka dhalatay maxaa isbedel ku yimi jadwalkii xafladda wax alla wax ku yimid ma jirto waddankan dowlad baa jirta dowlad baa xukuntaa dadkii rabashka sameeyay iyo wixii hawlahoodiina iyadaa dhammaysay iyadaa gashay waad la socotaa wax iyaduna dib loogu noqdo la hadal qaado maaha jadwalkiina sidiisii buu socdaa u dhacaya way marka laga hadlayo arrintan xeerka maadaama oo deegaano badan dadka ciisuha ay degaan isla markaana ay Somaliland ay qayb ka tahay maadaama oo dadka meeshana la wada dego oo dadku ay wada degaan oo ma garanaysaa meel la wada dega ay tahay saylac oo kale arrintaasi maadaama oo xiisadda horena ay dhalisay in mar kale ay khatar dhinaca amniga kala keento ma keeni kartaa horta waaniga kulama waddanka dowlad baa jirto ka mas'uula dowladdii dadkii ammaan darrada ka dhaliyay saylac iyadaa tagtay iyadaa soo xidhay iyadaa ka soo kaxaysay dadka reer saylac ee reer saylac degan wax dhibaato ay qabaan ma jirto wax ay dhib ka imanaysana ma jirto waana lagu qabanayaa meel kalena laguma halkaan baa lagu qabanayaa deedna si dirlaba looga dareeray unbaa looga dareeray iyo si Djibouti looga dareeray markii la dhigo unbaa looga dareeray wax dhibo jira ma jirto dowladda Somaliland iyadaa wixii oo dhan gacanta ku haysa meel fiican bayna marisay way marka mid la soo xidhay mad adigu ay ma ku jirtaa ama aan kuma jiro dad kala ka mas'uul oo wada hawsha Cabdalla Xaji marka laga hadlayo arrintan xeerka ciisaha maadaama oo inta badan ugaasyada beeshaasi lagu qabto lagu doorto saylac dibkana xeerka ciisaha leebigi lagu soo bandhigay taasoo kale dadka dedegan waxay mu sheegaysaa in buugana ay ku qoran tahay in saylac ay tahay deegaan dadka ciise u gaara taasoo kale markaas ma tahay xasaasiyada keenaysa ma keenayso nin walba dhul buu leeyahay waa la yaqaana saleebaano Somaliland qabaa'ilkeedu way siqaaniin nin walba meeshuu dega waa la yaqaana sama saaqu dhul buu leeyahay degay waa la yaqaana gadbursiga dhul buu leeyahay degay waa la yaqaana hartiguna meel buu degay waa la yaqaana ciisuhuna meel buu leeyahay iska leeyahay iska degay saylac waa meel ciise dowladda Somaliland buu ka tirsan yahay waana lagu qabanayaa xeerka waa meeshoodii iyaga ala waa meeshoodii laakiin wala degaas ma hadda wala magaalada wala degaas ma magaalo halkay noqotay magaalada Hargeysa imsa dad ku nool Djibouti imsa umad ku nool laakiin haddaan idhaahdo Hargeysaan leeyahay yaa iga aqbali aniga waan degaa haddaan idhaahdo
meel laga aqbali cid laga aqbalaysa ma jirto saasoo kale dee saylacan waa meel ciise degan yahay sagaal iyo tobankii ugaas ee ciisaha ayaa lagu qabtay xeerka ciisaan kaaga sheekeyn doonana halkaas ka soo bilaabmay waa kaas laakiin qora cabdalle xaji dadka aragtiyo kala duwan bay ka qabaan oo tan hadalkani waa kiiba dooda dhaliyey in meesha dee xasaasiyad abuurto oo dad badani ay ka hadlaan marka ma la odhan karaya tan lafteedu hadalkaagan wuxuu si abuuri karayaa in ay abuurto dood kale may wax dooda haba yaraatee ma abuuray xaqiiqadii weyn anu waxaan kuu sheegay waa kaas nin walbana waan la wada yaqaanaa dad baa doonaya inay fitnad ka dhex dhaliyaanoo dad aan shaqaba ku lahaynba dhulka oo aan deegaanba iyo dhul midba shaqo ku lahayn oo oday iyo siyaasiyiin yaa hadlayo waxay doonaan iskaga hadla kuwaasuna waa kuwii somalilan fitnada ka dhex samayn jiray oo dadka isku diraya waa la yaqaanaa caadi weyaan kuwaana in kale uunoo reer hargeysaa amba reer somalilan amba aan idhaahdaba qabiilka isaaqa unbaa u jawaabo dariiqa mariyey way marka saylac laga yimaado aad sheegtay xafladan in lagu qabanayo lagu weyneynayo ama lagu soo dhaweynayo aqoonsiga xeerka ciise ma jirtaa meelo kale oo magaalooyinka somalilan ah oo qorshu yahay in lagu qabto iminka ahaan may laakiin markii unesco la diiwaan geliyey ee la maqlayba halkan ciisaha hargeysa jooga hotel bay ku qabteen hotel casood miyay ahayd yaa lagu qabtay odayo badan oo odaya dhaqameedahoo reer somalilan oo yaa kasoo qayb galay abwaanadii kasoo qayb galin yuusuf shaaciriya baa ka mid ahaa oo ka hadlay oo soo dhoweeyey oo ku faanay xeerka cabdalle arrin kala jirta oo dadka diidan in lagu qabto xeerkan magaalada saylac ka mid ah oo ku doodaya in qodobo xeerka ka mid ah ay ka hor imanayaan qadiyadda iyo madax banaanida somalilan oo ay ku tilmaamayaan magaranaysaa waqooyiga soomaaliya doodaasoo kale soo ma aha mid loo codsan karo in xafladan iyo xeerkan baa la joojin saylac lagu qabto may horta dowladda somalilan yaa wadanka xukunta dowladdan waa loo sheegay way ogoshahay dowladdu buugganna aniga kuu sheegay bilowgiiba buug maaha waxa meesha lagu soo bandhigay laga hadlayo waa xafladdii unesco ay diiwaan gelisay somalilan oo dhanna inay ku faanto weeyaan sida etoobiya ugu faanayso maxaa u diiday somalilan inay ku faanaan yidhaahdeen waa xeerka iyagii annagaa leh etoobiya ku faanaysa halkan ciisuu dogaa ku faano maxaa hadal keenayaba taas waa taa buugguna waa gooniya waan kaaga sheekaynaysa way qodobo ma jiraan somalilan qadiyadeeda ka hormariya buug ku jira may buuggu xeer 500 sano ka hor si aad sheegtay bilowgiiba qodobadiisii iyo xeerkii la dejiyey yaa ku yaala xafladii ugaaska markii la qabanayay ee ugaaska lagu cimaamada loogu xidhayay saylac ee la keenay 2010kii bay ahayd samaad garan xilligaa yaan intaan buugga u horreeyay oon daabacay oo aan soo saaray buuggii markaan soo saarnay waxaa jirtay buug kaloo ilaa 10 ah oo madaxweynaha jabuuti uu maalgeliyuu daabacaya baa jiray kolkaa waa la diray waxa la soo dhaqsado buuggiina keena intii dambe markaan ku daray ayaa isagana la qaaday oo lasoo daabacay marka xilligaas dadkii tifaftirayay iyo degdegii iyo wixii yaa meelaha qaar waqooyiga soomaaliya lagu qoray laakiin daabacaadii dambe waa aniga ku tusay waan ka saxay somalilan baa ku wada qoran wax kale oo balaayo jirta ma jirto indhahaaga soo ma adarkid inay somalilan ku qoranta way cabdalle waxaan ku noqon doonaa arrintii xafladda aad sheegtay in lagu qabanayo saylac maadaama oo adigu qoraagii buugana tahay odayaasha deegaankana aad ka mid tahay maadaama arrintu ay xasaasiyad abuurtay oo mudaharaad abuurtay oo ammaankii ay khatar gelin gaadhay iyo wada noolaanshihii dadka deegaanadaasi ku nool ma isku daydeen inaad wada hadashaan dadkiina salal iyo awdal ku nool si xafladana u dhacdo si raali looga yahayna ay u qabsanto horta arrintaasu odayada iyo u taala laakiin aanu kalsoonida weyn qabo waxa weeyaan dee xukuumaddii somalilan baa gashayba oo xiba dhamaysayba waxa la isku haystoo kale maba jirto anu saasaan qaba waka marka waxaan odhan lahaa waxaa jira dad warxumatashiilahoo dad waaweyn ahoo maaragtay da-ah haddana xumaan bay dadka kale dhex gashaanoo qaar baa ka odhanaya muxuu ahaa dowladda jabuuti iyo reer jabuuti waa cadowga somalilan waxaan leeyahay may dad cadow isku yahay ma jirto dad walaalaha ayaan nahay somalilan iyo jabuuti maca soomaalida kale
مع محوها ديغان كان سومالida dadku waa dad wada walaala waa wada qaraabiye hilbiye habar wadaag waxaan doonayaa arinta inaan ku sheego murti aan ka qoray Allahu naxariistay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi isagu suugaan buu ku wada sheegay murtidiisii oo dhan laakiin tan waa hadal caadi waxaan doonayaa dhalinyaradu inay dhageystaan si fiican murtida xaajigu inooga tagay aan ku dhaqanno oo qaadano 98 buu xaajigu ku soo noqday Soomaaliland jariidadii muxuu ahaa jamhuuriya ayaa wareysatay waxa lagu yiri xaaji Hadraawiyow Soomaaliland way goosatay Soomaali gooni isku taagtay maxaad ka qabtaa wuxuu yiri haddii maanta dadkii Soomaaliyeed ay qodobkii siyaasadda ku kala tageen 99 qodob oo kale oo aan lagu kala tageen baa jira diintii baa jirta dhaqankii baa jira afkii baa jira jaarnimadii baa jirta gacalnimadii baa jirta daaqii baa jira halkaas oo mari laakiin qodobkii siyaasadda hadday ku kala tagtay buu qodobkaas waa maxay nin walba siyaasaddiisa hadduu gooni u maamusho laakiin 99 ka kale qodob laguma kala tagi karo aniguna taabaan aaminsanahay dhalinyarada xumaanta la gelinayaan waxaan leeyahay murtida xaajiga aan aamino oo aan ku dhaqanno nin xumaan sameynaya dadkan baraha bulshada muuqaalada duubay ee dumarka iyo haweenka oo dhan baa ka hadashay iska daa dadkeena kale odayaa ka hadla culimo ka hadashay war ilaahay ka baqa yaa lagu kari lahaa dhibaatada ma taqaanaa waxaa jirta kolka arrin loo fadhiyo ee gar la qaaday ee wanaag laga shaqaynayo odaya fadhiyaan mid baa jira halkaa dadka docoka hadloo qayqayliya oo murtinahayn waxna dadkan ku kordhinayn faamigii tashanaya dadkiina ka mid ama dadkii gartal wada qaadaya markaa waa leeyahay war kan yaa naga aamusiya war naga aamaadugu baa leeyahay adeerow kii naga aamu la odhanaya unbaa diba tagay telefoon kaa helay wuxuu doono ku hadlay yaa naga aamu odhan de wax kale odhan maaye waxaan leeyahay walaalahayow ku yar iyo ku weynba ilaahay idinkoo ka baqaya beenta ka daayo ummadda kol haddaad diba tagteen haddaad wanaag u sheegeen dadka tiina qabsado iska sheekaysto wax kale danihiina qabsadoo xumaanta ka daayo ummaddii aad waddanmadii maaragtay aad ku afuufaysiin dalkiini Somaliland bisa ugu soo afuufaan Soomaalida kale saa ugu afuufaan dowlad deegaanka saa ugu afuufaan waxay ka helayaan garanmayno kolka waxaan odhanaynaa ilaahay ha soo hadiye wax kale odhan mayno waayahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdalle Xaaji Cismaan Cileeye oo isagu ah qoraaga buugga xeerka Ciise iyo isla markaana buug kala qoray waana nin taariikhda iyo suugaanta muddo dheer ururinayay halkan MMTV ayuu marti igu ahaa waxaan wax ka weydiinayay dooda ka soo noqotay xaflad la sheegay in lagu qabanayo magaalada Saylac oo ku saabsan buugga xeerka Ciise iyo waliba xogo badan oo xeerkaasi ku saabsan ayuu bartan ugu la wadaagay aad iyo aad buu Cabdalle Xaaji ومهسن يهي انتان برنامج كان لو كلا كل مدونة وحيد كيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الدين وحيدين كانتي لسيندي قدام بهي سنة كفايديست الأمانتين وسوق على سعد الدين فرنيتشر وحي فافاين انتان ليرنا واحد كلا حريري كرتا تلفون نمبركا شاشة دقاقمو